وبه نستعين على أمور الدنيا والدين مدحda dhaqanka siyaasiyiinta halabuurka culamaa diinka iyo mulkiilayaasha shirkadda Cali Galle Group oo nagala joogo Liibaan Cali Galle marka hore salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad u bogaadinayaa oo aan bogaadintaas oo aan ka sido wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska shirkadda Cali Galle Group deeqda waxbarasho ee ay siisay qayb ka mid ah bulshadeena oo runtii aad ugu baahan wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxa ay toddobaadkii ugu dambeysay ku jirtay shirar dib u eegis iyo qorsheyn kuwaasoo maanta soo gabagaboobay shirarkaas waxa mudnaan weyn ku lahaa qodobka ah deeqaha waxbarashada marka waxa la sameeyay section ka hawlgala deeqaha waxbarashada waxa sidoo kale la sameeyay guddi arrinta ka shaqeysa waxa la shiray guud ahaan jaamacadaha dawliga ah ee wadanka kuwaas oo ay wasaaradda isla garteen inay siiyaan boqolkiiba 12 kamida ardayda wax ka barata ay bilaash wax ugu dhigaan ama ay deeqa waxbarasho siiyaan taa macnaheedu waxa weeye kunkii arday ee jaamacadda dhiganaya 120 kamidii waxay noqonayaan free marka taana waxa sidoo kale lagu hawleeyahay imika in la sameeyo kriteeriyadii iyo siyaalihii loo kala saari lahaa ama lagu xulan lahaa dadka deeqaha waxbarashada la siinayo dadkaas ay noqonayaan sideebay u suurtagelaysaa in dadka ugu mudan ee ugu habboon la siiyo deeqaha waxbarashada marka guud ahaan shirkadda Cali Galle Group oo aanay ahayn markii koobaad ee ay wax ku darsato hawlaha mujtamaca iyo adeegyada bulshada aad baan u bogaadinayaa waxaan leeyahay ilaahay yahay ku daro miisaanka xasanaadka qodob kale isaguna muhiim ah oo kulliba qadiyada day Yuusuf Shaacir uu joogay marka madalahan oo kale la yimaado waxyaabaha xusuusahayga ku soo dhaca waxa kamid ah gabayga Dulgariir marka waxaan kaga baxayaa tuduucyo kamid ah gabayga Dulgariir ee uu hadraawi qadiyadan ka tiriyay dhulka lagama soo qodin dadka aadan baa dhalay adig iyo hablaha dhinaca kale way isu dhigantaan dadkuda ka wada beeranteen daadashada guud dabdabad ku kala leexateen adiga joogdheer dawawalanka waxa kugu wacana mise doohnaanta dabdarooyinkooda qalbigu dhaawac dumayaaye dimir bay ku saareen dabool baali ka dhigaye hadalkana niyiri waa dhigaa sii dhexbaa dilay inaan daabadeeyaan rabaa dhowr kal dabadeeda dhaxalkeeda dhimankii lahaa way dhabaandhabiye iyaga dharaaraba intaan dhaafay sii oran dhafdhaf iyo halhayd beena baad soo dhabdhabateen dugatiya cad xaaraana iyo doohan may cunin damaas lagu takooriye ma jirin caado dhaaf kale dabcad iyo ma haysaan daliil meel la sii dhigay dhaqankaas cambaaraynayaa saaray dhillada labadii hiiga dheehi jiray way ka dheer tahay weligeed dhibaatada adduun looma soo dhixin daandhaanna maahe ka shaadooliboo tahaye intii aad disnaydeen iyagu way dur sugayeen dufaannimo hagooglay intaa kula dhex joogeen dharaarun in waa kala baryay dawrayeen abid dagahay intaas la hadlayeen waa dhab may odhan dhibaatadana way eegayeen daayihii jiray shaday dhanaan tahay haddii la isu dololfayto dabodirarka waa lagu yaqaan dhaanta iyo shiishe rag hadduu dhabiiltaba naftay dhegi yaqiiniine inkastuu xiniindhaaf yahuudi rinimo sheegto mar haddaan daliil lagu gudbayn dhalasho mooyaane dareenkiisu wuxuu dhaadayaa hoos in loo dhigay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu